dhaqameed muddo 7 caanamaal ah uga socday mid ka mida beelaha dega gobolada Togdheer Saaxil Saraar iyo Sanaaga ayaa lagu soo gabagabeeyay degmada Faqaayub ee gobolka Togdheer. Shirka ayaa ku soo dhamaaday guul wanaag wadajir midnimo wax wada qabsi taasoo intii uu socday lagu lafaguray arrimaha iyo danaha beesha. Wasiiro ka tirsan xukuumadda Somaliland, agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta, siyaasiyiin, qurba joog, waxgarad قال iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay. Xasan Cilmi Ducaale ayaa ugu horeynba akhriyay qodobada ka soo baxay shirka. shirweynaha tala wadaag ee beelweynta xildida la magan oo ka furmay degmada Faqaayub 5tii bishii 2004 soona xidhmay maanta ay taariikhdu tahay 12kii bishii 2004 waxa ka soo baxay qodobadan. qodobka koowaad, beeshu waxay qaadatay midnimo buuxda oo dhammaystiran. beelweynta xildida la magan waxay si buuxda u taageersan tahay midnimada iyo qaranimada iyo difaaca jamhuuriyadda Somaliland. cid kasta oo beesha wax dhaxmareen ama wax ka tirsanaysa waxay diyaar u tahay inay si wanaagsan ay u kala baxaan una soo dhaweyso. beeshu waxay diyaar u tahay inay beelaha darisyada kula noolaato walaaltinimo iyo jiiraan wadaag. intaas ay ka kooban yihiin qodobada ka soo baxay shirweynaha xildida la magan. عاقل علي عاول عرالة، عاقل سليمان آدم مرع، عاقل باشي حاجي محمود، قربة جوج حسن يوسف عثمان، xildhibaano dhalinyaro waayeel iyo mudan kale oo halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay shirkan muhiimka ah ee ay qabsatay beeshani. waxaanu u baahanahay oo aad qiimeyn ugu leh goobta Suldaan Cali ku aasan yahay ee Suldaan Cabdilaahi lagu boqray in la ilaaliyo qadarinteeda iyo xasuusinteeda iyo karaamada ay leedahay mar walba waa inaynu haddii la yaado la xusuusnaado. annagu horta waxaanu qaadanay waxa halkaa lagu soo qoray markaati nooga ahaada noogula duceeye waa qodobka labaad. halka waxa isugu yimi xukuumaddii iyo xisbiyadii mucaaradka waana dadaanu wada dhalano waa labadayada gamcood. waan ilmaadeerayaalow annagu reer baabaayo kala lumay baanu ahayn waxbaanu ururinay ilaah ayaa isu kaayo keenay. waan ilmaadeerayaalow duco mooye naga ogaada waxa caloosha ka soo ridaan. mid kasta oo mucaarada iyo muxaafidana waa soo dhaweynaynaa. anagu waxaan leeyahay meeshan waxaanu ka doonaynaa xusbiyada iyo xubnaha dawladda ka socda dhammaantood waxaanu ugu yeedhnay ee u macsuunay waa inay nalana taliyaan noona duceeyaan, laakiin wax kale aan ugu yeedhnay ma jiraan. sida waayeelka horeba uu ka dhawaajiyey halkan waxaa dee ka socday waa shir dhaqan oo ku soo afjarmay maanta xafladiisii ay maanta tahay. waana shir dhaqan, waa reer kala tegay oo markii hore kala yar waa reer dacal dheer oo uu yar kala baahay. kaa ururintiisaanu ka shaqaynaynay, tawfiiqdii iyo taladii wanaagsanayd baanu imika helay. cid kasta oo aanu ku martigelinnay waxaan uga baahannahay inay noogu ducayso. aad iyo aad waxaan u hambalyaynaynaa ama u soo dhawaynaynaa ama u baarigaynaa heerka la yidhaaho xildida la magan oo qabsaday shir aad iyo aad u macquul ah. qurba joogtoodii iyo qolqol joogtoodiina ay u dhan yihiin. waxaannu leenahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. mid ida anfaca oo ina wada anfaca ilaahay haynoo ka dhigo. shirkan quruxda badan ee biilan ee reerku qabsaday qodobadii laga soo jeediyey si mug iyo miisaanle baan ula qaadanay una baarigaynaa uguna ducaynaynaa. sidaasoo kale waxaan u soo jeedinayaa beelaha kale inay shirka noocaasi quruxda badan ee midaysan qabsadaan oo ayaguna kaga daydaan. taana waan ku gubaabinayaa. ilaahay baan u mahadnaqayaa anigu. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. adina u mahadnaqa nimcada ilaahayna siiyey. ilaahay ha u siyaadiyo, ha inoo siyaadiyo. intaa markaan dhaafo waxaan u gudbayaa reerka qabsaday shirka kan oo xildiid alla magana oo reer ballaadhana oo sidaa ay ku hadlayeen ee sheegteen ay ka dhab tahay dad faanfaanaya aanay ahayn. mahad ilaah baa leh. ilaaha nabadgelyada iyo barwaaqada isugu keenay baa leh. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. talabaad waxaa leh wufiidiina nooc kasta ha noqotee noo timiye
dhowrka boqol kiiloomitir soo socotay xafladdaa sida wanaagsan loo soo agaasimay noogu timi ma haddaana idinkaale ta saddexaadna waxaa leh beelweynta xildiid ee xafladdan aynu isugu nimi ee sharafta iyo qiimaa leh soo agaasitay waannu idiin ducaynaynaa waxaanaanu leenahay reer waa ka tagteen oo qabiil waa ka tagteen waxaad tihiin qaran ilaahay qarankii jiraha idinka dhigo dhammaan maytideennii dhimatay ee waalidkeen lahayd ee suldaan cali muuse lahayd ee mid hore iyo mid dambe lahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistii jannaha ka waraabiyo wixii buka ee inaga xanuunsanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ha caafiyo raxmadda ilaahay subxaanahu wa tacaala maraqa ha inooga furo qabsannay shirka aanu qabsannay wuxuu ahaa shir qoys buu ahay oo shir qaran oo reerku leeyahay oo xildida la magan leeyahay buu ahaa in badan baanu kala maqnayn sidaa idinba ka dhawaajiseen waanu kala baadnay markii aanu feeninay dhinac walba ka eegnay ku tashannay talada waxaanu ku gawsiinay maanta waxa inoo ku dara waxa intaa aynu isu keennayna ka burburiya waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xafladdan bilan ee ay qabsadeen reerka la yidhaahdo xildida la magan oo sidaa loo sheegay reer ballaaran oo afartaa gobolba degaanu markhaati uga nahay ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay saaka sidaa daraaddeed allaha raxmaanka ah ee maanta isugu keenay halkan ee haddii eebba kuu rooye xeedho qura wax ku wada wadaajiyey ee taladoodii iyo midnimadoodii iyo muruqoodii iyo maalkoodiiba mideeyebaan ayaa mahad iska leh hadal badan uma kicin waxaan anigu hadalkayga ku abbaarayaa marka hore beesha dhigatay shirka waxa weeye allayaa baarig shir wanaagsan oo hawl wanaagsan ayaa qabateen xafladdan qabsatay ee shirka qabsatay ee ka codsatay dadkan isugu yimi inay u duceeyaan oo shirkooda ugu duceeyaan waanu ducaynaynaa waanuna soo dhowaynaynaa waxaa qadarin iyo sharaf iyo ixtiraam weyn la ii leh inaan degmada Fiqi Ayuub ku soo dhoweeyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waxaan taa mid la mid ah iyagana aan ku soo dhoweynayaa ururada siyaasadda ee doonaya inay ku loolamaan doorashooyinka soo socda anu nin reer garadagana niman reer garadagna halkan way ka hadleen maanta 2024 iyadoo la marayo inaan shirkii labaad ee Turkiga joogo waa ku faraxsanahay Turkiyana waxaan leeyahay wixii aad soo saarteen ee muddada u fadhideen haddaanu dhalinyarada nahay anigoo aan afka xisbiga markaa ku hadlayn waa taageersanahay waxaan rajaynaynaa shirkaas xoogii galay iyo shaqadii gashay iyo enerjigii galay ee qurba jooguna qaybta ka ahaayeen madaxda dhaqankuna qaybta ka ahaayeen waayeeloo dhanna iskugu tegay inaanu hal bacaad lagu lisay noqonee go'aanadaa soo baxay kuwo hirgala oo shaqeeya oo dadka iyo dalka anfacay inay noqdaan baa ilahay idinka rajayna shirkan maantana lagu casuumay ee beesha xildid alla magan ay nagu casuuntay iyo goobtan quruxda badan ee ilbaxnimada iyo goobannimadu ay ka muuqato waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala shirkiinaas shirkii taabagala ee tisqaada ilaahay ha ka dhigo waxaan hambalyaynayaa beesha ballaadhan ee xildida la magan ee shirka qabsatay ee sida wanaagsan ee sharafta leh iyo qodobada wanaagsan ka soo saartay waan hambalyaynaya waan u ducaynayaa allah idin barakeeyo bahdii jirta ee ballaadhata ee barwaaqooda allah idinka dhigo saaxiibadaydii iga horreeyey dhinac kastaba ha ka yimaadeenna aan la qabaa mahad celinta iyo ducada iyo soo dhoweynta shirka qiimaha badan ee ay qabsadeen xildida la magan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Kaahin Axmed wasiirka wasaaradda cadaaladda Somaliland Saleebaan Warsame gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha Axmed Maxamed Xinif agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta Khayre Cismaan Caalin ayaa iyaguna hambalyeeyay shirka runtii farxad weyn bay maanta noo tahay inaan kala soo qayb galno beelweynta xildida la magan shirkan quruxda badan qodobada qiimaha badan ka soo baxeen maskaxda iyo caqliga badan la geliyay waa mid laga filayay xildida la magan
madashan oo kale iyo milgahanba inay sameeyaan waa mid laga filayey aniga farxad gaara bay anay tahayo waa abtiyaashay xildida la magan ee shirkan ugu marti qaaday gunaanadkiisii waan u hambalyeynaa waana ku taageersanahay waana u ducaynaynaa ilaahayna ha idinku garab galo go'aamadiisii kuwa sheegteen iyo kuwa idin gaarkaaba waxaan kula halkan uga ducaynaynaa suldaan cali muuse ilaahay ha u naxariisto suldaan cabdillaahi suldaan calina ilaahay caafimaadkiisa ha u dhammaystiro isagoo caafimaad qabana ilaahay ha inagu soo celiyo bulsho weynta xildiid alla magan ee muddo halkan u fadhiyey ee go'aan soo saaray ee guddi qabanqaabo sameeyey ee muddeeyey ee ilaahay aqbalay ee go'aammada ka soo saaray intaana maanta ku casuumay iyagana waxaan leenahay alxamdulilah